جزاك الله خيرا. سؤال la xiriirta dahabka iyo lacagta Sheekh Umal kusoo dhow. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة dahabka ku saabsan sakadiisa horta khilaaf baa jira culimada dhexdooda dahabka ay dumarku ku labistaan oo isku qurxiyaan sakama lagu leeyahay mise laguma laha halkaas khilaaf baa ku jira inkastay u xoog badan tahay masaladu in saka lagu leeyahay dahabka kiisa lagu labisto iyo midka laga ganacsado iyo midka kaydka u yaala intaba qadarka ay zakadu kaga waajibto waa markuu gaadho 85 gram wixii ka hooseeya saka laguma laha 85 iyo wixii ka badan markuu gaadho ayay sakadu ku waajibaysaa waxaa laga bixinayaa marka ay sakadu ku waajibto boqolkiiba 2 haddaad si kale u dhahdo inta dahabkaagu yahay ayaad 40 u qaybinaysa waxaa ku soo baxaya boqolkiiba 2 baa ku soo baxaysa hadduu 200 yahay 5 baa soo baxaysa hadduu 100 yahay 2 baa soo baxaysa waxa kada hadduu 85 yahay 2 soo baxaysa waxa kada marka boqolkiiba 2 qiyaastaas ayaa laga bixinayaa taa waa dhanka dahabka طبعا dahabku la fahantiisa lama bixiyo waxa la bixiyaa inta ka go'aysa dahabkaaga ayaa la qiimeynaya suuqa laga qiimeynaya kadibna lacag ahaan baad uga sakeynaysaa haday noqoto mesela inay 3 gram ka go'ayso ama 5 gram 5 gram baad suuqa ka qiimeynaysaa kadibna lacagtii baad bixinaysaa lacagaha kama foga iyaguna sidaas lacagaha la isticmaalo oo dhan noocay doonaya ha noqdeen ayaguna waxay leeyihiin hal qiyaas ah oo zakadu kaga wada waajibto qiyaastaasina waxa weeye dahabka dib loogu celinaya waxa la leeyahay lacagta aad haysato haday gooyin karto suuqa ka gooyin karto 85 gram oo dahaba lacagtaasi marka waa gaadhay sakadii hadayna lacagtaad haysato ayna gooyin karin 85 gram oo dahabana lacagtaadu way ka yar tahay qiyaastii zakada lagu lahaay ku waajibi lahayd laguma le marka 85 gram oo dahaba marka ma gooyin kartaa lacagtaad haysato waa ina suuqa aado xilliga zakadu waqtigeedii soo galay ayaad suuqa tagaysaa war lacagtaan haysta waa inta dahabkuna maanta intaas uu jooga lacagtaydu 85 gram oo dahaba ma gooyin kartaa haday jawaabtu haa tahay zakada waa lagu leeyahay marka hadayna gooyin karin oo ka yar tahay lacagtaadu zakada laguma laha marka haddii lagugu yeesho marka iyadana waxaa laga bixinayaa lacagaha zakada lagu leeyahay boqolkiiba iyadana 2 baa laga bixinaya waxaa muhiim inaynu fahanno lacagaha haddii la rabo in la ogaado zakadii ma ku waajibtay nisaabkoodu dahabku u noqonay oo dahabka qiyaasta zakadu kaga waajibto iyo lacagaha isku qiyaas bay noqonaysaa halkaas dib loogu celinaya qadarka laga bixinayana waa isku mid oo boqolkiiba 2 baa laga bixinaya wallahu a'lam فضدنا والمد فضدا والعقد لباد اللي استعمال جري وقت النبي صلى الله عليه وسلم والله لعق عبد ولا استعمال جري لعق والعقد الذهب كا والعق هام بالو استعمال جري لبسنا والله استعمال جري كيدنا يا قنعسنا والله استعمال جري لعقد الذهب كالذهب كمركز زكاه كقضوا كصوت المان باش اللي يراهدو سيدو كله سيلفر كا انغونا ان دهنو قلنك يدنا iyaduna sidoo kale way laakiin qiyaasta zakadu kaga waajibayso waxay yiraahdaan waa 200 dirham waxaan u maleynayaa taqriiban 600 oo gram bay ku dhowdahay filaya taqriiban 595 gram haduu gaaro qalinka aad haysato iyadana zakadu waa ku waajibaysa haday zakka iyo wixii ka badan wixii ka yar zakka kuma waajibto haday zakka ku waajibto isagana waxa laga bixinayaa boqolkiiba 2 oo inta la qiimeeyo ayaa marka lacagta la bixinaya wallahu a'lam جزا الله شيخ كل خير تفضل الحمد لله وسيد الشيخ جزاه الله خيرا وجوابي waxaan rabaa inaan baraarujiyo kaliya
dadka zamankan marka hadda la joogo mas'alada zakada dadka muslimiinta aad bay u fududaysteen waana rukniga saddexaad oo islaamka dad badan waxaa ka dhaadhacsan inta aan arkay dadka maalqabeenka ah oo xoolaha leh inay zakadu ku waajibto macnuhuna sidaa waa ka fog yahay zakadu waxay leedahay nisaab sida sheekhu sheegay xoolaha laga zakeeyana way badan yihiin laakiin dadka reer magaalka waxaa khuseeya saddexda arrimood oo ugu badan oo ah dahabka iyo fidada sida sheekhu sheegay qalinka iyo waxaan ganacsiga la yiraahdo wixii ganacsi loo haysto ama dhul ama daar ama wixii la mid ah ama dukaamo ama alaabtood saddexda arrin baa dadka aad u khuseeya rag iyo dumarba marka arrinta waxay ku xiran tahay nisaabka ee xoolo maal badan inuu qofku haysto dad badan oo waxaad arkaysaa koona maxaan zakeeya aniga zakadu maba igu waajibto waana yar yahay qof aanay zako ku waajibayn xoolihiisa khatar weyn baana ka jirta haddaanu qofku zakadiisa si fiican u xisaabin sanadku markuu soo wareego waciid weyn baa ka yaal yacni goodi adag baa ka yaal dadkaan zakadooda waladiina yaknizuuna adahaba walfidata ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم حوله بالله سمينا يا الله سمينا يا صفائح مركز الوجوب بيها مركز سوشيال الشيخ شن يسديتن جرام بذهبك قلنا يا النصاب كيس مركي هذا أين في إنه الذهب كقيمة إن الله عجها عنت الوجوهيست تقريبا جرامكو هذا سوق وحلقيا $40 لبيا $40 كويا $40 صدني سجالد مالها سينو ودحية يا مالها سينو ودحية مركا وحنا نقونيسا تقريبا لعك صدح كن يحوجايا أو دولار هدوه هيستبا قفك أو سند لعكتا أو هيستي زكى إنك واجبيس بقولك والله ويا برا طبعا صدح كنا مركا هيسنا ويرانيسا تاسوا قضب كلا haddii fidada lagu qiimeeyo lacagahan waraaqahan haysano koronka iyo dollarka iyo giniga iyo shilinka waxay joogaan booskii labadii lacagood la adeegsan jiray oo waagii hore dahabka iyo qalinka labadii bay booskoodii taagan yihiin oo lagu qiimeeyaa marka haddii qalinka la yiraahdo ha lagu qiimeeyo 595 جرام كينا في الضدا تقريبا سوق ونص دولار جوجو نص دولار وحو جوجا 0.6 0.7 ميلها سوي $1 مقارو في الضدا وحو نقونا يا قفكي هايسته $660 او سند هايستي $660 او كليه وقف مال قبينها قفكا سند اي او الله لعقتاس زكانا كو واجبيس بقولكي والله بيو بربا لغا ربا $680 قف aan haysano dadka uu ku yaryahay oo sanad aan haysan waa inuu si fiican marka isaga xisaabiya waqti uu xisaabiyo bil uu xisaabiyo waqti go'an waa inuu leeyahay sakadeeda dadku waa inay si fiican isaga jiraan oo isaga intaasaan ku sii dari lahaa culimadu waxay kala ka hadleen labada dahab iyo lacagta kee ku qiimeynaa dahab iyo fidada maadaama lacagta labadaas lagu qiimeeyo koronka oo kale waxay yiraahdeen culimadu waxa fiican in lagu qiimeeyo qalinka fidada sababtoo ah faqiirka iyada u faa'iido badan nisaabka dahabku weyn yahay ilaa 3,000 qofkii inuu haysto way laakiin fidada hadii lagu qiimeeyo 380 qof kasta lacag buu bixinayaa faqiirkana $5 inuu helo ayaa uga fiican inuu $200 ka sugo sanad kadib inuu ka sugo marka sida loo ogaado jazaakum Allahu khayran hana lagu dadaalo ilaahay khayr idin siiyo